horay ma u aragtay calaamadan ma soo ogtahay faa'iidada ay leedahay maxay ku kala duwan yihiin expire date-ka iyo calaamadan dad badan marka ay wax soo iibsanayaan waxa ay fiiriyaan oo kaliya waqtiga uu dhacayo shayga ay soo iibsadeen ama expire date-ka tusaale ahaan expire date 2024 oo ah sanadka waxa aad soo iibsatay uu dhacayo laakiin waxa jira taariikh kale oo loogu talagalay isticmaalka shaygaas haddii aad furto waxaana ay ku qoran tahay qaybta hoose ee gasaca ama caaga aad soo iibsatay iyadoona loo soo gaabiyo xarafka M oo la micno ah month ama bisha badanaa waxaad ku arkaysaa waxyaabaha shoppingka ah ee jirka iyo timaha la marsado isla markaasna loogu talagalay in lagu qurxiyo iyo sidoo kale daawooyinka qaar tusaale ahaan haddii ay ku qoran tahay 2M waxa ay la micno tahay 2 bilood ayaa la isticmaali karaa oo ka bilaabanaysa waqtiga shaygaas aad furto haddii ay ku qoran tahay 8M waxa ay la micno tahay 8 bilood ayaa la isticmaali karaa 9M haddii ay ku qoran tahay waxa ay la micno tahay 9 bilood ayaa la isticmaali karaa oo ka bilaabanaysa waqtiga aad furto haddii kareem shaambo ama saliid aad soo iibsato iyo wixii la mid ah waad ka eegi kartaa calaamadan qaybta faalooyinka ayaad aragtidaada nagula wadaagi kartaa haddii aad muuqaalkan ka heshana like saar asxaabtaadana u sheer garay